halkan waa xabaalaha gaalkacyo gaar ahaan xabaalaha aeroboortka waxa weeye hadaad gaalkacyo ku nooshahay oo aad dhimatid waxa weeye waxa laga qaadaya canshuur lacag baa laga qaadaya kambani uu xiran yihiin qabuuruhu nimanka kambani u xiran yahay qabuuruhu u xiran yahay waxa weeye shirkad weeye waxay leedahay hal gaari dadka dhintana iyagaa qadaraasta oo lacagta ka qaada godka iyagaa qoda marka laba arrimood baa jiro oo ku geedaaman kow horta godka ay qodayaan waa god laba nin baa u qoda godka labada nin u qoday godka u qoda god cariiri oo qodayaan oo silca oo qofka xitaa meydka aan la kala bixin karin oo cariiri ku ah talabaad waxa weeye hal gaari ay wataan dad badan haddii la keeno xabaalaha waxa weeye waqti badan bay qaadataa in maxaan ku yiraahdaa la duugo dadka waa lambarra laga qoraa oo waxa loo qoraa lambar 1 iyo lambar 2 iyo lambar 3 iyo lambar 4 taas loo kala qoraa dadka si loo soo kala horeeyay markaas waxa leeyahay waxa ka horeeya 3 qof baa saaka dhinto ka horeeya 4 qof baa ka horeeya waa suginaysa meydkaaga meesha ku weeliyay inta waqtigii gaarigii waa hal gaari shaqaalihii meesha qodayay waa laba nin arrintan xamar waxay ka dhacday 94 markii dawladdii dhexe burburay xamar waa ka hor yimaad arrintaas waa iska joojiyeen waxa weeye markii tacadigaas ay arkeen iyo dhibaatadaas hadda waxa weeye wixii 94 xamar laga diiday anaga hadda baa nagu cusub oo hadda qandaraaskaasaan haysta marka waxaan la yaabay maalin aan marxuun dhintay kasoo xabaalayay qaburahan Abdullaahi isku aasan yahay Allah naxariiste iyo dhammaan inta meesha ku habaalan waxaan la kulmay waxay ahayd oo igu kaliftay inaan meesha wax ka soo duubo waa arrintaan ku arkay oo ah qabuuraha silaca ka jira iyo dayacaas baahsan ee xabaalaha ka taagan halka shirkadu xiran tahay dadka lacagta laga shubo qof aan xabad bahaysan oo laga yaabo inuu dawal la'aan iyo gaajo u dhintay iyo nafaqo la'aan iyo cunno la'aan iyo daryeel la'aan baa waxa weeye baa lacag laga qaadaya leeyahay lacagna shubtid maaha meydka aasan maysid marka waa arrin aan la yaabnay oo Soomaali u baahan in laga dhiidhiyo waxna laga qabto dadkuna ay maxaan ku yiraahdaa dadka dhintay dadka wax ka baaraya maxaan ku yiraahdaa la iska celiyo haddii wax walba dhaqaale laga raadiyo wax walba la dacin dhaqaale laga sameeyo nolosha iyo naxariista baa xirmasa waxa weeye nimanka halka jooga oo qabuuraha dhex jooga niman qabuuraha daryeel u leh maaha waa dad naxariistii iyo raxmadii waa hore ka dhimatay waa xitaa qabriga ka leexanayno qashinka ku duldaadinayo qabriga adoo wax ka aasiya sigaar ku dul cabiyo waxaan markaa muddo